saraakiil ka tirsan howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya gaar ahaan dawladda Talyaaniga ayaa maantay booqday xabsiga dhexe ee Xamar iyo xarunta wax soo saarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cilmi Waasuge Colow taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar General Daahir Cabdulle Raage saraakiil kale iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka saraakiishan ka socotay dawladda Talyaaniga ayaa waxay soo indhaynayeen xaaladda iyo nolosha maxaabiista gaar ahaan qaybta haweenka oo ay doonayaan in ay dayactir iyo dhismayaal kale ay ku soo kordhiyaan taasi oo qayb weyn ka ah taageerada midowga Yurub oo Soomaaliya siiyo sidoo kale saraakiisha dawladda Talyaaniga ka socotay ayaa booqday qaybta wax soo saarka iyo farsamada ciidanka asluubta oo ay wax ku bartaan maxaabiista xabsiga dhexe ku jira iyagoona bogaadiyay dadaalada horumarineed halkaasi ka socda Marwe Batuule Axmed Gaballe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa dawladda Talyaaniga uga mahad celisay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyadoona sidoo kale codsatay in horumarin iyo dib u dhis lagu sameeyo qaybta haweenka lagu xiro ee xabsiga dhexe ee Xamar waxaan rabaa inaan u mahad celiyo commanderka iyo saraakiisha sare ee ka socda European Union gaar ahaan Talyaaniga oo ah dad annaga aan nahay saaxiib iyo walaal sida ay sheegeen madaxda xabsiga qaybta haweenka waxay u baahan tahay dayactir waxay u baahan tahay meel caruurtooda iyo familigooda markay yimaadaan ay kula shiraan oo ay kula sheekaystaan oo ay ku qaabili karaan in loo dhiso sida taliyaha uu sheegay wixii baahi ah oo gaar ahaan haweenka ay u baahan yihiin xabsiga ku jira qoraal ayay idinku imaan doontaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan idinka codsanaynaa in aad priority-ga koowaad siisaan ama ahmiyadda koowaad aad siisaan maadaama haweenka meesha ay ku jiraan ay u baahan tahay in si maaragtay naxariis leh oo waxtar leh wax looga qabto annagana dawlad ahaan runtii maanta wixii maxaabiisteena la xiriira waa waajibka koowaad ee nagu tahay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyo guuto Cilmi Waasuge Colow ayaa isna dhankiisa sheegay in ay socdaan qorshayaal lagu horumarinayo xabsiga dhexe Xamar ayna doonayaan in dawladda Talyaaniga ay taageerto tilaabooyinka socda waxaan soo dhaweynaynaa booqashada aad noogu timaadeen horeyna ay noogu imaan jireen ninkii la bedelo idinka horeeyay shaqa naga dhaxaysay ninkaas badan waana isla soo shaqaynay idinkana waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan sidii oo kale aan u wada shaqayn doono warshada wixii aad nagala qaban kartaan waad aragteen wax walba u baahan tahay wixii aad nagala qaban kartaan ayadana inaad gacan naga siisaan waa u baahanna Talyaaniga ayaa ka mid ah dawladaha taageera ciidamada qalabka sida waxaana Soomaaliya ka jooga saraakiil gacan siisa ciidanka Soomaaliya Maxamed Cali Sibriye warbaahinta codka ciidamada magaalada Muqdisho